go'aamiyay jireen caafimaadka wax ka barto inkastoo waqtiga markii dambe ay haleeli waayay waa fanaanka kaliya ee heestii ugu horeysay ee uu soo saaray 1.7 milyan ku gaadhay magaciisuna uu Soomaalida caan kaga noqday sidoo kale waa fanaanka kaliya ee wajahay dagaalo iyo weeraro badan oo shakhsiyadiisa ku socda waxa jirta qofka marka kasta oo ama heer gaadho ama uu meel gaadho waxa yimaada caqabado hoos yaaca dad baa jira iska jeclaanaya halka aad gaadhay inaad hoos uga soo daadegto oo kaabadii aad ka soo bilowday aad ku soo noqoto marka waxaan u arkaa marka horumarkayga iyo waxa aniga ay muuqday halka aan u socdo caqabadii hoos maray baraha bulshada waxa lagu baahiyay cod gabadh uu sheeganaysa markii ugu horeysay ayuu arintaas ka hadlay sheekadaas gabadha waxay ahayd waa siyaasadihii la rabay majaraha ama hay'adda aan gaaray ama halka aan u socdo in laygaga habaabiyo oo hoos laygu soo rido laakiin waxay noqotay wax aan anigu ku qoslo oo macnaba ay sameeyeen markii codka gabadhu soo gaadhay sidoo noqday dareenka qamar halkuu laakiin waqtiga ku sugnaa horta imka adoption baan la sameeyay markii wuxuu noqdo wax soo noqda oo mar lagu sameeyo laba lagu wax isku ku noqonaya wax iska caadi marka waxa aan dhibaato u arkayba iyo damage mu ahaynba waan arkay waan ku qoslay waan dhaafa dagaalka baraha bulshada ee fanaanka marka dadka dhageysta iyo Soomaalidu arkaan waxa la isweydiinayaa ma fanaanka ayaa qalqaale iyo qof xun ah mise jalaafooyin kale ayaa jira sababta badan aniga mar walba ama weerar ama wali weerarkaygu midhihu badan oo weerar face to face oo leh badan la igma soo qaado laakiin waxa weeyaan waan iska juhdi badan hay waxaan jecelahay inaan wax qabto waxaan jecelahay inaan dhaqdhaqaaq sameeyo waxaan jecelahay inaan wax soo saaro ba uu badan waxa la rabaa inaan iska fadhiyo inaan waxba qaban anna ma jecel inaan xataa haddaan iska socdo waxaan jecelahay aan xun shaaga lay dhabeeray jawiga laygama horeyn waleeyaan jiricooday jamal kaaga ideeqay jirkiyo xubnahay jiriyay markaad jogsiyara dhaqaqday jamal kaaga ideeqay jirkiyo xubnahay jiriyay markaad jogsiyara dhaqaqday qalbiga dhinacaaga jooga waxbaa soo jiidanaya jawaabana waxaa ideeqda adoo jamasho codaya waliba ila jila jacaylka waliba ila jila jacayl mararka qaar waxa uu isku day dil hanjabaad iyo cay uu kala kulma dad cadaysan oo isaga moodayo ciwaano tiro badan oo magaciisa si been abuur ah loogu isticmaalo dadkana waxa uu afeef uga dhigtay Instagram ha noqoto ama Facebook ha noqoto oo magacayga lagu isticmaalaa in ay waqtiyada qaar halis soo gaarsiiso kelmado ama ereyo aanay dadku jeclaysanin baa mararka qaar baraha bulshada oo qaar magacayga lagu isticmaalo lagu soo qoraa kelmado aanay dadku jeclaysanin baa baraha bulshada badan waliba iyadoo magacayga lagu isticmaalayo lagu soo qoraa waxay keentaa mararka qaar in hadee aan halis galo ama dad cadaawad igu qaada waa isku dayaan dhibaatooyin markaa ama gacan ka hadal uu meeshii yimaado waayo dadku ma fiirsadaan ama ma hubiyaan inuu aan anigu leeyahay ama page-kan ama bartan bulshada wax la soo dhigay marka wallahi dhibaatooyinkeedu iska badan weeraro badan oo magac dil ah ayuu la kowsaday isla bilowgii fankiisa oo saameyn afkala qaad ah keenay weeraraduna joogto ayay ku noqdeen haddaba waqtiyada uu masaajidka ku tukanayo muxuu dadka kala kulmaa waxaan galay masaajid baan galay suuq ku yaala masaajidkii markaan salaad saago soo baxay baan soo baxay
afar inan baa markaa masaajidka soo hormarayay intii saa u istaagin buu qamar baa tukanayay de waxay u noqotay wax cajiib ah marka iyagan xumaan qama laakiin may filanay inaan masaajid intaan soo galo aan ku tukado malaboy kartidaada niyada ka mabsuuda nabdigaada mulkidaale kama marma agtaada mid haweenka mas-uulsan hani wayga munaasibo inankoomu hana hayo dadku waa ka markhaatiye dabacigaaga marwaysan ninkama laku beego allahay mansabsiyey ana makhluuq la wadaagay wuu heesaa ee dhinaca diintana siday isku yihiin culimada soomaalida se ma jira kuwa uu ku xidhan yahay sheekha majority hataa haddii aanan daawan ay yar tahay waa sheekh mustafa majority waxaa loo xulduubo waan daawaday waan dhegaystay allah ka jasaay mariya fanaaniintu qaabka ay u wada nool yihiin u wada shaqeeyaan ama u wada dhaqmaan waa arrimaha qarsoon ee dadku aanay waxba kala socon keliya fanaanka oo heesaya show qabanaya ayay arkaan qamar ayaa sidan sheegaya waanu isa soo booqanaa waanu isa soo xidhiidhinaa weliba waanu isa soo raadsanaa waananu isa soo xiisnaa ma runbaa in qamar suugaani uu waxbarasho u tegay waddanka suudaan markii dambena maxadka fanka suudaan uu ku biiray islamarkaana uu leeyahay laxamo heese caan ah oo suudaani ah kuwaasoo la sheegay in qaar ka mid ahba uu qaadi jiray fanaankii caanka ah ee reer suudaan ahna fanaanada caanka ah ee nada odaygeedii suudaan maan tegin laakiin waxaan ka soo baxay manhaj igala weyn igala qiimo badan igala aqoon iyo xirfad badan meel kale ma tegin waxaan ka faa'iidaystay macallinkayga cabdinaasir macalin caydiid oon runtii aqoon aad u fara badan ka faa'iiday xinjira laga dhuray wadanaha xubbigan ku waraabin jiray qof baan helay xafida qof baan helay ii xafida xidhiidh labadii lahay lawan waqtigii xayray عكا قلبي حسلي عكا قلبي حسلي حدد لبادي لحي لو وقتي حيري عكا قلبي حسلي عكا قلبي حسلي qamar waxay dhowaan lamaana noqdeen nasiim cabdulaahi diiriye sooraan nasiim ma nasiibka uunbaa isku keenay mise jacayl ayay isku soo xusheen maxay tahay nolosha uu u dooray lamaanihiisa xanteena kuwii jeclaa oo sheeg xaaskaygii xafladii meherkeena iyo aynu u dhow yahay xuskeena xidigii nasrigeena nasiim wallahi wala soo kaaya talagala nasiim waxa weeyaan waa boqorad dabci akhlaaq dhaqan intaba ka dhisan qof aragti ahaan ka dhisan waa qof mentally morally and physically intaba ka dhisan tahay nasiim de intanan imaka fadhiyo gura kuma soo koobi karayo runtii waa qof aan sidhaahdo mararka qaar waa la isugu keen talagalay waa qofka quree i fahmi kara waxaan jecelahay waxaan damacsanahay waxaan imaka xaaladan ku suganahay waa qofka quree dareemi karta marka waxaan aaminsanahay la isugu kaya talagalay nasiim kalmadahan kaay nasiim kabaha xiskaay nasiim kahiybaxu kufkayga idhaafisaay adaa kow iyo kun jeer ku nool qalbigani ka milan kulkooli ka shaadegto kafiya hanataya qalbiga inaan kulan kugu bartana nasiibka adeegay iyo kariimka mahadiska leh kashuna way ku ogtahay inaan kulan kugu bartana nasiibka adeegay iyo kariimka mahadiska leh kashuna way ku ogtahay
maxamed wardi maruu ka hadlayay magaca uu u bixin lahaa ilmihiisa curad haddaan magac u bixin lahaa ilmahayga curad insha allah biidnillaahi kariim walaa waqti bay gu qaadan leedahay magac bixiyo waxa uu ka hadlayaa haddii uu noqon lahaa 24 saac madaxweynaha waddanka oo loogu yeedhi lahaa madaxweyne qamar sugaani waxa uu muddadaa kooban uu ku bedeli lahaa markaan sidaa xilka u qabsado qoladii laamiyada dhisi jirtay iyo gaadiidkiiba soo kicin lahaa isla habeenimada waxaa la ameen jajaban baan intaa aanu waagu naga baryin hagaajin lahayn subaxdana fii sabiilillah xilka wal iska dhiibi lahaa qalbiga dhinacaaga jooga waxbaa soo jiidanaya jawaabana waxaa ideqda aduhu jamasho codiya waliba ila jila jacaylka waliba ila jila jacayl ugu dambayn maxamed cabdi cabdilaahi qamar sugaani fanka ma ka baxaysaa ayuu jawaab ka bixiyey fanku waa hobigayga shaqadayda ma markaa ma inaan de ku nafiso markaan u baahanahay mise inaan fanka shaqeeyo camal ka dhigtoon waxaan dhex jooga 24 saac noqdo lagama yaabo fanka inaan shaqeeyo camal ka dhigtoon mar walba dhex taagnaado laakiin marmar iyo inaan laba ku nafiso laga yaabo